xildhibaan Khadar Cumar oo kamid ah xildhibaanadii golaha deegaanka caasimadda Hargeysa dhawaan ku soo baxay liiska ishaaciya guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ugu horreyn u mahadceliyay shacabka Soomaaliland isagoo ugu hambalyeeyay guusha uu gaadhay in iyagu qayb weyn ka qaateen soona saareen. dhanka kale wuxuu ugu baaqay xubnaha cusub ee golaha deegaanka Hargeysa inay u doortaan hoggaanka cusub ee caasimadda si uu uga dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa inuu warrayn Ilaahay baa mahadle in soo gaarsiiyay maalinta qiimaha badan leh maanta ay taariikh tahay 6 bishii 6 2021 waa maalintii lagu dhawaaqay natiijada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee doorashada isku sidkan warrayn waxaan mahadnaqayaa Ilaahay in gaarsiiyay guusha iyo shacabkii Jamhuuriyadda Soomaaliland ee guusha qaybta weyn ka ahaa waxa mahad gaar ah mudan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa oo hirgeliyay doorashada isku sidkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabkii iyo taageerayaashii qiimaha badnaa ee inta badan cadeeda ay soo taagnaa sidoo kale waxa mahad gaar ah mudan xisbiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee fursadda noo siiyay ka dhalinyar ahaan inaanu ka dhex tartanno waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa injineer Faysal Ali Xuseen Faysal Ali Waraabe oo si gaar ah aniga ii taageeray oo fursad ii siiyay inaan ka dhex tartamo doorashadaas taageerayaashii qiimaha badnaa iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee bisaylka siyaasadeed muujiyay ee nabadgelyada muujiyay aadka qiimaha badan leh aad baan ugu mahadcelinayaa waxaad muujiseen bisayl siyaasadeed ka qaran ahaan ka dhalinyar ahaan iyo ka guud ahaanba ka Khadar ahaan waxaad ii doorateen inaan ka mid noqdo golaha deegaanka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii aan hore idinku ballan qaaday inaan idinku adeego si xilkasnimo leh hufnaan leh daacadnimo leh ayaan mar labaad idin ballan qaadayaa haddii alla igu guuleeyo inaan ka mid noqdo hoggaanka sare ee golaha deegaanka waxaan ka rajaynayaa xildhibaanada golaha deegaanka inay igu caawin doonaan insha Allah billahi kariim hanka iyo himilada because of waxaan matalaa anigu dhalinyar badan baa soo baxday maanta awood gacanteena ku jirta haddii alla yiraahdo insha Allah billahi kariim waxaan rajaynaynaa inaynu wada guuleysano guul baa noo horseedeen shacabkaygiyo waad ku mahadsantihiin sida aad noo garab istaagteen ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida guud ahaantood waxay inoo muujiyeen oo Soomaaliland maanta ay muujisay inay tahay qaran madax bannaan oo kaligeed tashan karta maanta jaarkeena waynu arkaynaa waxa ka dhacaya inay qabsan kari laayeen doorasho 300 nin oo meel la fariisiyay qabsan kari laayeen inagana way muuqataa guushaynu gaadhnay Ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa inaan guusha weyn gaari doono in ictiraaf rasmi heli doono haddii Alla yiraahdo ka dhalinyar ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka mid noqono hoggaanka iyo xildhibaanada la doortay ee rasmiga ah aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh